subax wanaagsan asxaabteeda aanu ku wada xidhannahay bartaydan Facebook. maanta waxaan doonayaa videogan yar ee kooban inaan uga faa'iidaysto inaynu isweydiino 4 su-aalood. afartaas su-aalood oo runtii ah waa maxay xanuunkan ama cudurkan adduunyadii ku faafay ee la yidhaahdo coronavirus ama COVID-19. haddii ciidiba ay samaysay ma wax natural dabiici ku yimiba mise waa wax bini aadamka ay sameeyeen oo synthetic ah dadku ay sameeyeen. haddiiba ay tahay xitaa wax dadku ay sameeyeen, waa maxay sababta looga dan lahaa ama la doonayay in laga gaadho. qodobka afraadna wuxuu noqonayaa xanuunka haddii laga soo koobto ama laga soo doogsado saameyn inta leeg buu adduunyada ku reebayaa. adduunka aynu ku nool nahayna akoonka aynu ku nool nahayna aragtidiisu mid sida u eg ayuu noqon doonaa. afrilo qodob oo kooban runtii aan doonaya inaan dadkana aan jeclahay runtii bal inay su-aale iska weydiiyaan. dabcan in badan baa talooyin laga bixiyey xanuunkani waxa uu yahay, ka hortagiisa wuxuu yahay. marka taayada waqti badan geli maayo, waayo almost daily maalinle ayaa dad anigu aan kamid ahay dad bulshadaba ku jira ay runtii mar walba ka hadlaan. laakiin waxaan doonayaa bal focuskii aragtida biniaadanka inaan ama aragtideena inaan taa ka ila duwo si aynu siyaabo badan ama su-aalo badan aynu wax isaga weydiino. waa tahay waa maxay coronavirus? sida aynu scientifically aynu ognahay ama aynu baari karno ama aynu heli karno, xanuunkani waa viral maxaan ku dhahday sidii nooc ama hargab ama duray ah aynu ognahay inuu yahay. dabcan hargabka iyo durayadu marka laga hadlayo strainka uu sito ama hidasidaha d n a giisu wuu ka duwan yahay. xanuun walbo hargabka kale wuu ka duwan yahay. xanuunkana waxaa loogu abtiriyaa inuu qeyb ka yahay xanuunkii loodhan jiray SARS, oo wax loogu yeedho xanuuno ku dhaca runtii xagga qeybta sambabada ama respiratory xanuuna ah. taa markaynu kasoo gudubno waynu fahnay xanuunkan inuu hargab yahay. saameyn wuxuu ku leeyahay oo saameynta ugu badan ay tahay inuu sambabka biniaadanka uu fadhiisto. siyaabaha lagu qaado waynu ognahay. xanuunkani ma aha kow wax loo yaqaano airborne, ama ma aha mid hawada ku faafa oo runtii ama qofku uu neefsado ay sido oo hawada ku jira. xanuunkani waa xanuun qofku markuu qabo ka iman kara hindhiso ama qofku inuu ama hindhiso ama uu qufaco kusoo bixi kara. haddii qof u dhow yahay oo cadad uu jiro tallaabo ama 2 tallaabo, qofku uu ka qaadi karo, uu ku dhici karo, ama uu sanka, afka, indhaha, dhegaha, meelo badan oo furan oo biniaadamku leeyahay uu ka geli karo. ama qofku markuu hindhiso ama uu qufaco dropletska ama runtii dheecaanka afkiisa ka yimaada uu ku dhici karo meel ama bir, qori, meel la taabto iyo wixii lamid ah. dabeetana qof kale haddii uu taabto uu maxaan ku radaa ka qaadan karo. dabeetana qofkaasi hadduu afkiisii iyo meelaha furan oo taabto oo dhan ama kontact la sameeyo, xanuunkani jismigiisa uu geli karo. waa tahay waxaa lanoo sheegay in xanuunkan haddii uu meelaha surfaceska uu ku noolaan karo 72 hours, 72 saacadood uu ku noolaan karo. wixii lamida materialka ama dharka hadduu qofku ku hindhiso, gacantiisa ku hindhiso, inay iyana saacado ku noolaan karaan. waa xanuunkan asalkii maxaan ku rahday waxa uu yahay, sida loo kala qaado, sida uu ku faafo, iyo maxaan ku rahdaa bahda uu ku abtirsado. haddana qodobka iyadana siro kooban aynu ka gudubno maadaama dad badan runtii ay macluumaad badan ay ka bixiyeen. waxaan doonayaa inuu gudbo xanuunkani sidee ku yimi, xaguu ka yimi, asalkiisu muxuu ahaa. daraasaad badan baa haddaba laga sameeyey xanuunkani meeshii uu ka yimi ama originalitygiisa uu ka yimi. runtii wax walba oo dhaca dabcan face value baad u qaadanaysaa. waxaad oranaysaa waxani waa wax dhacay, qadar le ku yimaadeen. adduunyadu runtii hadday noqoto guulo badan baa laga gaadhay dhinaca sayniska, hadday noqoto dhinaca technolojiyadda, dhinaca nanotechnology, guulo badan baa laga gaadhay. marka dabcan
caqligiibaa kuu khasbaya inaad waxaan yiri raadso su-aal isweydiista war waxaan ma natural ba waayo su-aalaha ka imanaya waxa weeyaan adduunkan ku nool lahay cudurro noocan oo kale faahfaah oo biniaadanka saameyn intan badan ku yeelan kara ama dad badani ay qaadaan oo ay noqdaan de xanuuno faafa ama xanuuno dad tiradeedu intaa ay leeg tahay ay u dhintaan adduunku wuu yaryahay waqtiyada uu soo maray xanuun marka la eego runtii adduunka soo maray oo dhimasho ama faafid taran faafineed intan in lamida bini-aadanka saameyn ku yeeshay waxaa ugu dambeysay dhamaadkii dagaalkii koowaad adduunka 1918 xanuunkii loo yaqaanay loodhan jiray Spanish flu waana xanuuno runtii dhammaantood wada haleela sanbabka iyo feedhaha wada haleela dabeetana dabcan scientifically meelo badan baa haddii qofku markuu ama xanuun qabo ama siyaabo badan uu qabo runtii ma doonayo qodobka inaan ku dheeraado way dad badan oo ama dhakhaatiira ama iyagu laftigooda cilmi u leh ama virology leh entomology leh waxaasoo dhan baa runtii aragtiyo badan ka bixiyay marka waqti badan aan kulmiye ma doonayo xanuunkani siduu ku yimi doodo badan waxay ka taagan yihiin xanuunkani inaanu ahayn mid ku yimi si nature ama si ama natureku uu keenay oo maxaan ku rahdaa si caadiya ku yimi oo dhalasho caadiya ku yimi ma aha xanuunkani ayaa doodo badan laga keenay doodahani waxay markaa runtii ku taxalluqaan in la leeyahay xanuunkani waa biochemics synthetic virus lagu kaydiyey shaybaad maxaan ku rahdaa biochemic shaybaad lagu diyaariyey looguna talagalay in uu yeesho asbaabaha uu leeyahay waa tahay qodobka markaa haddaan runtii isaga laftigiisa aynu wax iska weydiino baaritaan aan sameeyey iyo aragtiyo badan oo aan ururiyey adduunku waxay u yaqaanaan fikir qofka markuu ka yimaado waxa la yidhaha waa theory laakiinse waa fikir cilmi ku dhisan oo qofku markuu theory yeelanayo waa inuu waxyaaba badan eego hadda jeer theorygu ma aha wax loo yaqaano scientifically proving oo wax la baaray oo daraasaad lagu sameeyey dabeetana conclusionkiisii ama qiimeyntiisii ay noqotay in laysla wada qaatay inay tahay wax saxa theorygu wuxuu ku iman karaa qofku inuu yiraahdo okay sidanay waxu dhaceen halkaasay martay halkanay martay sidanay u yimaadeen therefore waxani wax xaggaa ka yimi ama halkaa ku salaysan inay yihiin waa theoretical maxaan ku rahdaa ma aha laakiin scientifically proving marka theory badan ayaa odhanaya xanuunkani ko waa synthetic waa wax bini-aadanku ay sameeyeen waxaad taa yare xoojinaysa markay noqoto biochemical warfare adduunkani in badan bay diyaarinayeen ilaa marka la yirahdo qarnigii labaatanaad dhamaadkii qarnigii 19aad qarnigii labaatanaad adduunku waxay kaydinayeen sumo xanuuna ah oo dal waliba doonaya ama dad waliba ay doonayaan dad kale inay ama isku difaacaan ama dad kale ay u adeegsadaan nuxurkana wuxuu ahaa sidee dad looga adkaada adduunkuna waa siduu ku dhisan yahay runtii man itself is a dominant creature jecel inuu dominate garayo ama doonaya inuu dominate garayo mid lamida isaga si uu helo resources waxa loo yaqaano ay ku dhisan tahay maxaan ku raday falsafada dhanaya science-ka ama biology-ga waxa weeyaan ciddii ay food chain-ka ka sarreyso xagga sare ka taagan tahay dhibaatada iyaga u imanaysaa way yar tahay so therefore waxa ka hooseeya oo dhan inay maxaan ku radaa u diyaariso ama ay iyaga ka dhigto inay noqdaan food chain-ki marka waa theoryga waxaa ku base garaysan survival of the fittest wax loo yaqaano oo darwinian loo yaqaano oo ama evolutionkii binaadamku say kusoo abuurmeen qofba qofkuu ka xoog weeye ka tamar badan yahay inuu ka guuleysan doono ama uu ka waari doono marka loo eego kaka jilicsan marka xanuunkan waxaa lasla wada qaatay inuu ama theoryadani ay runtii dhammaantood ay yihiin inuu yahay wax maalmeedha oo lagu talagalay qolo inay qolo kale kaga xoog badato ay ku baabiiso nuxurka markaa aragtidan markaan u dhaco bishii October iyo kohoraadkeedii waxaa lagu qabtay nin professor oo Harvard jaamacadda la yiraahdo United States of America Harvard University wax ka dhiga
ninkan takhasuskiisu wuxuu ahaa muu ahayn virologist muu ahayn ama biologist muu ahayn oo cudurada faafaya waxyaabaha isagu shaqo kuma lahayn, laakiinse takhasuskiisu wuxuu ahaa wax loo yaqaano nanotechnology. nanotechnologyga markaan aan fahankeeda aynu u baahannahay waxa weeya nanotechnology waa wax iliqabatay ka yar, ishu ma qaban karto, ma arki karto, laakiinse waa in maxaan ku rahdaye microscopic lagu eego. tusaale ahaan hidasidaha DNA-ga, xuduudka iyo xadka waxa isu haya, xadkaha isu haya, wax isu qaban karto maaha. waxaynu ka hadlaynaa almost cell maxaan ku rahdaa cell productionka, kelmadii soomaaliya baan raadinaya, unugyada faraca oo waxaan la arki karina ku takhasusa. nanotechnology waxaa loo isticmaalaa in la raaciyo dhiigga ay maraan, oo haddii qofku kansar qabo dabeetana qofka dhiiggiisa la raaciyo si uu u daweeyo boogaha qofka jimsigiisa ku jira hoose, si uu gaar u abaaro. marka waxa weya waxaan iliqabatay ahayn baan anigu af soomaaliyan ku turjumi karaa runtii, oo u baahan microscopic in lagu qiyaaso times 10 times 15 maxaan ku rahdaa waxyaaba caynkaas, aragta caynkaas in laga yeesho. ninkan markaa isagoo Harvard markaa wax ka dhiga baraka ah nanotechnology oo ku takhasusay nanotechnology, ayuu wuxuu la yeeshay wada shaqeyn jaamacad ku taala province-ka ama gobolka Wuhan ee China ku yaala, jaamacad la yidhahdo WUT. jaamacaddaasoo markaa isaga waxaa ataajir ku ahaa laba khibradle Chinese ah oo baaritaankan la sameynayay. baaritaankani markaa isagu qeybta nanotechnology-ga uu isagu qaabsanaa waxay ahayd transport. nanotechnology-gan isagoo waday si ama qof xanuun ku dhacay, ama meel la doonaya in la daweeyo, ama meel la doonaya in la gaadhsiiyo, awoodeedii technology ee transportka u sameynaysay, logistic usamaynaysa ay raaciyeen. waxaynu ka hadlaynaa ma aha wax adduunka maraya, waa wax jimsiga qofka dhexdiisa ku socdaabaya. that is nanotechnology. maxaan ku rahdaa qeybta ay tahay waa tahay labada qof iyaga laftigooda khibradan professorka la diyaarinayay, gabadh ka mida waxaa la ogaaday inay darajada kabtanka ay ku leedahay ciidanka Chinese-ka baaritaan markii lagu sameeyey. ninkan akaankiisa waxaa laga helay, ama haddii midkeeda leeyahay bangigiisa akaankiisa waxaa laga helay lacag tira badan oo aanu mushahar u qaadan meel kale ka heli karin. markii la baaray baaritaan lagu sameeyna waxaa la ogaaday lacagtan inay ka timi waddanka China ka timi. dabeetana Federal Bureau Investigation oo loo yaqaano FBI oo Mareykanka tirsanaya baaritaan ku samaysay ninkani lacagtana meesha ay kasoo gashay. markii wax laga weydiiyey laga su-aalana been buu ka sheegay oo si daacada ugama jawaabin. ninkaas waa la xiday, wax kale laguma xirin oo la taxalluqa xanuunkan aynu ka hadlayna coronaviruska, laakiinse waxaa lagu xiday iyagoo baaritaankoodii wata inuu been u sheegay hay-ad baaritaan wada, inaanu run u sheegin dhaqaalaha soo galay meesha ka soo galay. laakiinse baaritaankoodu wuxuu ahaa dhaqaalahan maxaa ku xiran, qofkan maxaa dhaqaalahan loo siiyey, muxuu qofkani qabanayay, shaqadii China ka qabanayay, Wuhan ka qabanayay maxay ahayd, caddaynteedii ma hayno. markaa ma odhan karno ninkii uu xidhan yahay, ma odhan karno, laakiinse waxaa lagu xidhay xanuunkan wax la taxalluqa ayuu China kala shaqeynayay. qeyb kale oo aragti kale waxay odhanaysaa bishii koowaad ee 2020 sanadkan aynu ku jirno, iyo muddo ka horreysaba waxaa ka dhexeeyay waddanka Mareykanka iyo waddanka China wax loo yaqaano trade wars ama ganacsi, heshiisyo ganacsi, dagaalkooda ayaa ka dhexeeyay. dabcan China adduunka waa manufacturingkii adduunka, waa warshadii adduunka. waxa ay sameynayaan ama ay haddii badankeeda leeyahay adduunyada gelinayaan adduunka dhan bay usoo, Europe bay ka iibiyaan, America ka iibiyaan. wuxuu noqday dal in badan lagu dhaliilayay ama lalahaa technologiyadii West Europe ama Western Europeans ama North America, oo ah markaad qabiil ahaan ka fikirtay in adduunkii waa qoloqolo Caucasian
maxaan ku radayay white European technology-ga adduunka ay ku haystaan, ama mid dhaqaale ha noqoto, ama mid nano technology ha noqoto, ama technology oo farsamo ah oo hadday noqoto maxaan ku radayay artificial intelligence IA ha noqoto, ayay ka hadeen. oo waxaan xusuustaa ururin lagu sameeyey 5 sano ka hor oo la yiri basaasiin tiradooda lagu qiyaasay 10,000 ka badan ayaa Europe jooga u shaqeeya, China u shaqeeya, oo shaqadoodu ay tahay inay xadaan teknolojiyada Western European. marka waa dad Caucasian, waa dad cadaan, waa white European, iyaguna markaa protection ku haysta inay adduunyada xoogga ay ku haysteen ama dhaqaale ama technology waxay doonto ha noqotee, ama pharmaceutical ability, scientific ability, xanuun ha noqoto, dawooyin ha noqoto, wixii lagu ilaalinayay in Chinesku uu xaditaan ku jiray muddo hadda laga la odhan karo 15 ilaa 20 sannadood, si awoodiisa adduun ay usoo baxda, maadaama dhaqaalihiisu uu aada u fidayay. way u baahan yihiin awoodana inay helaan. doodaa jirtay iyo dagaalka ganacsi xagga maxaan ku rahday cashuuraha ah, maraykanku waxyaaba badan buu kusoo rogay, Chinese kusoo rogay. dabcan heshiiskaa la gaadhay bishii koowaad 2020 China aada ugama helin, waa lagu qasbay, wayna saxeexeen. muddadii markay saxeexeen waxaa kamid ahaa maadaama dhaqaalihii China uu aada u kobcay, aadna u badan yahay, sidaa daraaddeedna ay heli karaan awood ay adduunka kombaniyada adduunka ugu waaweyn ama technology markay noqoto, ama Google, Apple iyo kombaniyo kaloo dhaqaaleba ama technology ha noqoto, waxay doontaa inay sheerar ama qayba ku yeelan karaan. inaanay teknolojiyada kombaniyadaasi ay develop gareeyeen research ku yimi, dee hawlo badan ku yimi, inaanay xadin oo gaar u isticmaalin. waxyaabaha laga seexay baa kamid ah oo lagu qabsan doono haddii ay heshiisyada buriyaan. China runtii si adag, maadaama dhaqaalahoodu ku dhisan yahay iyagu, inkastoo ay leeyihiin population aada u ballaaran, waayo mar walba inaad xusuusatid tirada guud ama wadarta guud ee Chinesku 100 bilyan iyo 300 buu sare u dhaafay. iyaga laftigooda ay leeyihiin dad middle class ama dad leh maxaan ku rahdaa inay dhaqaale ku isticmaalaan, gawaari cusub iibsadaan, gawaari heer sare ay iibsadaan, teknolojiyada iibsadaan. haddana laakiinse suuqoodu waa adduunka. si suuqa loo xadido inaanay si gaara iyagu u yeelan, ayaa heshiisyadani badidood maraykanku uu ilaashanayay, ama ha noqoto caafimaad, ha noqoto dawooyin, ha noqoto, ama ha noqoto technology ha noqoto, isagoo ilaashanaya ayaa lagu qasbay Chinesku inay heshiiskan galaan. heshiiskaa markii la galay, waxaa markiiba dilaacay xanuunkan oo Wuhan province ka dilaacay, coronaviruska. waxaa lagu doodaa in muddo badan Chinesku ay ilaalinayeen oo aanay adduunka u sheegin xaaladan lasoo kulantay ama la kowsatay wadankoodii. doodaha la keenaya waxa weeyaan, waxani maadaama man-made u ahaa, ama wax dad ay sameeyeen ay ahayd, in isagoo research lagu sameynayo ama la eegayo baaritaan lagula jiro saameynta uu yeelanayo, dee laga hortegayo in xanuunkan ama cudurkani shaybaadhkii lagu baadhayay uu ka baxsaday. waxay qeyb ka tahay theoriyada ama aragtiyada maxaan ku rahdaa isbaalmarsan ee dadku ay wax iska weydiinayaan. ma aha theorio investigation lagu sameeyey oo la cadeeyey inay sax yihiin, mana aha theories inta la keenay baaritaan lagu sameeyey layiri way khaldan yihiin. so therefore argumentku uu taagan yahay, it stands as a reason at the moment. su-aaluhu markaa waxay noqonayaan maxaa looga dan leeyahay. qaybo ka mida arrimaha theoryga waxay leeyihiin China cudurkan markuu ka faafay ee uu ka bilaabmay, China dhaqaalaheedii way xidhay, workforcekeedii, dadkii warshadaha ka shaqeynayay, wax soo saarkeedii oo dhan wuu joogsamay. xanuunkiina wuxuu usoo gudmay Europe iyo America, uu saameyn aada u ballaaran ku yeeshay, mid dhaqaale ku yeeshay, mid bulsho ku yeeshay, mid wax soo saar ku yeeshay, mid dhaqaale ku yeeshay. taasina waxay keentay in hoos dhac uu ku yimaado dhaqaalihii adduunka as we know it, oo ah western leading economy. waayo dhaqaalaha adduunka waxaa hogaaminaya, maamula, ifafaaleeya, wada waa western economy. xaqiiqadu say tahay, waxay noqotay markaa in Chineska la yiri sharaa'ig badan ama ganacsi badan oo ama wax soo saarkoodu uu yahay technology uu yahay, science yahay,
dawooyin yahay ayay qayba ka iibsadeen maadaama dhaqaalihii hoos u dhacay. waayo hoos u dhacni markuu yimi stock marketkii adduunka, kombaniyada ama telecommunication ha noqdeen ama technology ha noqdeen ama pharmaceutical ha noqdeen ama maxaan ku rahday bangiyo ha noqdeen, hoos u dhac baa ku yimi. hoos u dhacii waxaa la yidhi chinesku investment badan buu geliyay siduu qeyb ugu yeesho kombaniyada. mar walba xusuusnow, heshiiskan waxaa laga saxeexay chineska laga saxeexay mareykanka ka hor yimi ee ilaa laisku haystay ilaa keiskii ugu caansanaa ee ahaayee la odhanayay maxaan ku rahdaa Huawei telecommunicationka chinesku uu leeyahay, ilaa haddana Canada ay ku xidhan tahay gabadhii ahayd managing directorka ama CEO-gii Huawei ay Canada ku xidhan tahay. waa cunaqabatayn dhaqaalihii North America iyo Northern Europeanku ay saareen. waxaad dib u xusuusanaysaa in Huawei infrastructureka wax la yidhahdo 5th generation telecommunication, hadda 4G baynu ku jirnaa, 5G is in place, wuu socdaa, wuu shaqeynayaa. in dowladda ingiriisku ay contract kula galeen qeyb ka mid a infrastructureka ama dhismaha ay doonayaan hawsha ay ku fuliyaan in Huawei ay qeyb ka noqoto. mareykanku waa ka qayliya ka jooga, ay ku yidhahdeen ha sameynina. taa mid lamid a mareykanku xukuumadda hadda joogta Trump wuu ka mamnuucay in Huawei uu qeyb ka noqdo. xaqiiqadu waxay tahay dhowr company oo laba European tahay iyo Huawei oo Chinese ayaa the leading technology know-how-gii haysta 5th generation telecommunication hadda kusoo shaqeynayo. marka waa waxyaaba badan oo aada runtii isugu xidhan howlahan halkay marayaan. Chineskii markay investment gashadeen waynu aragnayo waqtiyadan dambe China waxay ku jirtaa stagekii labaad. ka hortagii way ka baxday, lockdown bay warshadaheedii iyo shacabkeediiba ku samaysay. hadda qeybtay ku jirtaa waxa weeyaan ay leeyihiin shacabkeygii si ay dib ugu soo noqdaan, wax soo saarkiina dib u bilaabmo slowly ama si tartiib tartiiba waxaanu dib u furaynaa in dalkii uu kasoo kaabto dhibaatada xanuunka ay geystay. dhinaca kale markaad eegtid North America iyo Europe weli waxay la baaxadegayaan saameyntii xanuunkani uu ku yeeshay bulshadooda caafimaad ahaan, ummadooda jiritaan ahaan, quwadoodii iyo dhaqaalahoodii. taa waxaa marka laleeyahay xoog aada u badan oo markii hore halkii chinesku quwadiisa xoog dhaqaale adduunka uu marayay ee loogu talagalay in lagu weeqo 3 jeer ayay kor uga baxday. marka waa arrimaha runtii u baahan qof waliba inuu si bal caqliyana u baaro, fahmana runtii halka ay wax u socdaan. qodobka ugu dambeeya markaa wuxuu noqonayaa marka laga gudbo xaaladan adduunku uu galay, adduunku xaaladiisu mid sidee u eg bay noqon doontaa. xaaladda adduunku ama quwadihii dhaqaale, quwadihii technologyga adduunka hogaaminayay, quwadihii militarily adduunka hogaaminayay, quwadihii aragti dalal kale hogaaminayay, sidee bay ku dambeyn doontaa. dabcan maxaan ku rahdaye the jury is out. in other words, sida ay noqon doonto waa la malayn karaa runtii. dhaqaalihii Northern Europe maxaan ku rahdaa Northern Europe Caucasian Northern Europe waayo adduunka waa qabiil white European oo dhaqaalahoodu ay dominate gareeyeen adduunka 200 sano ugu dambeysay. isbedel aada badan baa ku imanaya, bulshadoodii dabcan tabaalaa ku imanaysa, dhaqaalahoodii baa baaba'aya. tusaale haddaan ku siiyo ingiriiska waqtigan xaadirka la joogo wax alla wixii sharaa'ig ama ganacsi jiray oo dhan waa la xidhay. marka waxaad ka hadlaysaa qof dukaan haysta ilaa qof shirkad caalamiyo aada u ballaaran haysto oo ay u shaqeeyaan 300,000 kun. dhaqaalaha soo galana balaayiin uu yahay sanadkii kulligood, iyo ka ugu hooseeyo qof u shaqeeya ama qof businesskiisa isagu uu leeyahay ama cafe meelyad ay uga furan tahay, kulli way xidhan tahay. marka laga soo noqdo bandoogan ummadda saaran, dhaqaalahani workforcekii, dadkii shaqeynayay, dadkii skill ahaa, shaqo noocee bay helayaan. kombaniyadan ama sharaa'igan jiray caafimaadkii dhaqaale iyo maaliyaddii ay haysteen mid sidee weeg buu noqon doonaa. dhaqaalihii dalku uu lahaa, dhaqaalaha maaliyadda dalka gaarka u ah, dhaqaalahay gacanta ku lahaayeen in intay leeg baa u haraysa markay dhaqaale aada u badan ku bixiyaan sidii loogula dagaalami lahaa caafimaadka iyo maxaan ku rahdaa daaweynta bulshadooda.
marka runtii waa arrin saameyn adduunka badan ku yeelan doonta. waxaa xaqiiqa siday doontaba ha noqotee oo xaqiiqa in adduunku sidii uu ahaan jiray aanu dib kusoo noqonayn, aanuna ahaan doonin. dowlado badani fakri bay gelayaan, dowlado badan oo hogaaminaya adduunka ama adduunka talo ku lahaa. adduunka marka lagu leeyahay dowladahaasi waa stakeholders. tusaale innaga waxaynu ka dhiganaa somaliland, waxaynu dhahnaa stakeholders ama dadkii stakeholderska dimuqraadiyadda ku lahaa ayaa arrimahayna faray. markaynu leenahay dadkaasayna faray dee xoog naguma haystaan, macnaheedu waxa weeyaan dhaqaale, saameyn dhaqaalay nagu haystaan. dhaqaalahoodii isbedel baa ku imanaya. marka saameyntii dadku ay isku lahaayeen, dalalku isku lahaayeen, ama madaba ha ku dhisnaato, ama geopolitics ha ku dhisnaato, ama qolo kale ka tamar badan ha ku dhisnaatee, isbedel aada u weyn ayaa ku imanaya. cashirka maanta waxaa nagu soo koobayaa faaleynta guud ee adduunka ka socota iyo siday tahay. dabcan casharo badan oo aynu ku faaleynayno more specific issues oo gaara na waynu soo qaadan doonaa. haddaad cashiradan dhegeystay, thank you, share, ummadana la wadaag, aragtina ka dhiibo. faarax cigaal, dhammaantiin mahadsanid.